meel ku dhow wasaaradda gaashaandhigga ayaa qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Talyaaniga ee qaybta ka howlgallada ciidamo ee ka soconaya Soomaaliya. qaraxa markii la eegtay durbadiiba waxaa halkan soo gaaray ciidamo ka tirsan dawladda oo wadada daafaheeda xiray. gaariga lagula eegtay qaraxa waxaa nuuciisna la kugu sheegay inuu ahaa gaari nooha burburku waxa uu gaaray mid ka mid ah kolonyadii ciidamada Talyaaniga ee goobtan marayay waana sanadkii labaad oo isla wadadan qarax lagula eegto. 1 Oktoobar 2018 sidan oo kale ciidamada Talyaaniga ayaa wadadan qarax lagula eegtay inkastoo markaas iyo haddaba aan la sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxan. qaraxu sidoo kale waxa uu burbur hantiyadeed u geystay dukaamo ganacsi oo ka agdhow halka qarax uu ka dhacay iyadoo aan aragnay mootooyin kala duwan oo halkan ku burburay maadaama ay jidka marayeen. saraakiisha dawladda ee halkan timid ee kaliya qabatay in ay kala eriyaan warbaahintii doonaysay inay muuqaalada duubato wax wara kama aysan soo saarin. guud ahaan dhanka dawladana qaraxan la eegtay ciidamada Talyaaniga ahay khasaaraha gaaray iyo siday wax u dhaceen ilaa iyo hadda wax wara loogama hayo dhanka dawladda. waxaa sidoo kale dhibaato kala duwan ay soo gaartay guryo kala duwan oo ka agdhow goobaha ganacsi ee hareeraha ku yaala laamigan qaraxu ka dhacay ee lagula eegtay qaraxa ciidamada Talyaaniga ah. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.